xoghaynta golaha iyo shaqaalaha faafinta ama midiyaha ummadda Soomaaliyeed hawada laga daawanaysa ila socota dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan hortiina soo taago anigoo ka tirsan golahan una ordaya ama u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha haddaan iskiin baro in yar taariikh kadib wax ka bilaabo anigu waxaan ku dhashay degmada Lascaanood ee gobolka Sool waxaan ku bartay deegaanadaas 1980 baa waxbarashada soo afmeeray 1980 waxaa ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Levi Awshaale aan aaday Masar qodobay kulliyad la yiraahdo kulliyad handasa askariya military college waan muddo sana joogay oo ku soo laabtay dalka waxaan ka shaqeeyay wasaaradda gaashaandhigga halkan lahayd kabacdi waxaan ka shaqeeyay hoggaanka saraakiisha waxaa tegay kulliyadda jaalasiyaad waxaa tegay kulliyadda adduunka kabacdi 1988 anigu waxay muuqatay law kala yaacayo muqdisho anigu markaas ka tegay ugu dambeysay marka intaas soo dhaafo waxaan shaqo bilaabay wasiirnimo siyaasadda galay 2005 ayaa noqday wasiir waxa aan ka wada ahaa odayaasha halka fadhiyo maxamed cali yuusuf gaagaab wasiir buu ahaa cabdiraxmaan maxamed faroole wuxuu ahaa wasiir jiray ana wasiir baan ahaa shaqada waa dhamaystay kabacdi waxaan ka mid noqday cabdiraxmaan maxamed faroole cabdiraxmaan wuxuu noqday 2009 waxaan ka noqday golihiisii wasiirada xilligii cabdiweli cali gaas waxay wasiirka beelaha iyo waraabka haddana waxaa noqday wasiirka arrimaha gudaha dowlaha hoose iyo horumarinta reer miyiga waddan hadda jirta waxaan ahaa wasiirka isgaarsiinta teknolojiyadda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka kabacdi ayaa lay doortay 2 jeer ayaan u tartamay ku-xigeen 2010 iyo 2019 mar nin baa iga helay horta taariikh nololeedkayga waa intaas inaan siyaasi oo yaab isku sheego inta markaan ka gudbo mudanayaal iyo marwooyin waxaad igu doorataan aragnimadayda iyo khibrad dawliga waa inta aan sheegay waxaan ku kalsoonahay inaan ka wada shaqayn doono inagoo iskaashanayna qodobada soo socda golahoo dhan baa laga rabaaye in isagu wax gaar leh oo halka golaha liina ma jireen waxaa la rabaa shirgudoonku golaha ayuu u yahay u qaybiyaa nidaamka iyo magaciisiga laakiin isagu wada gaar ma jiro waa waxaynu ka wada shaqayno oo guluhu leeyahay haddii la yidhaaho anigu waxaan urday waa ka labaad kow taabagelinta dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah tiirar adagna ku taagan wada shaqaynta hay'adaha dowladda dhexe ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed adkaynta wadajirka iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed hirgelinta iyo ka shaqaynta dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed inagoo dhan bayno tala golahana aan iskale maaha wax tiin cadeeyay waxa isagu ka shaqeynayo wax la rabo inaan ka wada shaqeyno hogaaminta golaha dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taala wada shaqaynta labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xallinta khilaafaadka hay'adaha dowladda iyo ka shaqaynta wadajirkooda يعني هذين سقطان حكومة iyo golaha shacabku ama xukuumadda iyo madaxweynuhu haddii cid la rabay inay dhex gasho oo odayaasha oo guurtidaha oo marweyinka waa golahan la rabaa marka inta inaan inagu dhan qaadano wada shaqaynta shirgudoonka dhexdiisa iyo xubnaha kale ee golaha haddaan shirgudoonka wada shaqayn golahuna aan la shaqayn waxba inoo socon maayaan beelata ka wada shaqaynta iyo dhamaystirka shuruucda qabyada ah ee golahan lagu dhisay waa run saaxiibadii hore waa ka hadleen wax badan baa golahan qabyo ka ah daryeelidda xubnaha golaha iyo shaqaalihiisa kor u qaadidda aqoonta iyo tayada shaqaalaha golaha mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh ee aqalka sare waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina siisaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu